رئيس الوزراء جمهورية فدرالك Soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa waliba uu shir gadoomiyay shirlan ku arin sadaay qorshe midaysan ee la dagaalamo argagixisada sida warkan uu ka sii wado Maxamed Nuur Maxamed Abdullaahi Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo shir gadoomi kulan degdeg ah oo la isku weeri taliska howlgalka AMISOM ee dawladda Soomaaliya ku taageero amniga iyo la dagaalanka argagixisada kulankan degdeg ah ee eedlinka falanqay qorshe uu soo diyaariyay taliska ciidamada xoogga dalka oo la fadahay in kooxda argagixisada linku saara deegaanada iyo kumidka ee dalka iyo ka dhibaatayaan shacabka Soomaaliyeed Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre iyo kulanka ku sheegay in dulqaad korna in kooxo arxan laawiyaasha iyo si dhibaatayaan dadka Soomaaliyeed oo dhammaan ku qaybgalayaasha kulanka mayba uu ku dalbaday in dagaalka argagixisada leen wajaasi wada jir ah waana gacan la kasii dawladda qorshe cusub ee dalka dhanleen ku dhigaw ko nabdoon safiirka Mareykanka Ingiriiska midowga Afrika ee safiirka xigeenka midowga Yurub ee Soomaaliya Italiyaga howlgalka AMISOM oo gobro ku ah shirka leen ku arin sidaa qorshe argagixisada leen ku saaro dalka iyo taageeray in si wada jir ah leen fuli qorshe dawladda habandhigtay ee la kafadahay in dalka leen ku safay argagixisada taliyaga ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed in qarshiya kulanka kureed saxaafadda oo ku warbi walyaabo kulanka ku bahi Prime Minister wuxuu isku yeeray shir degdeg ah oo isku yeeray safaaradaha wadamada aan saaxiibka nahay ama international partners loo yaqaano African Union iyo AMISOM iyo SNA waxa la isku yeeray waxay ahayd qorshe hore u soo socday oo SNA waday iyo dawladda Soomaaliyeed ay wadeen oo ah soo dhawaaday markaan qaabkii fulitaankiisa soo dhawaaday sidii international partners AMISOM noogu taagi lahaayeen sidii loo wada sameyn lahaa qorshe cusub oo joint operation ah oo loo wada fulin lahaa xilliga soo socda arrimaha mataqaana la rabo in lagu cadaadiyo ama lagu mataqaana looga saaro gobolada badan ee ku dhex jiraan mataqaana nimankaas argagixisada marka arintaas shirkaas isku yeeray safaarado badan baa ka soo qeybgalay AMISOM baa timid waa la wada hadlay si sincerely loo wada hadlay aad iyo aad u fiican waxaana ka soo baxay outcome aad iyo aad u fiican oo ah kii aan sugeynay oo ay 100% ballan qaadeen in nagu taageeraan wax alla wixii aan uga baahnayn operationally iyo wixii training aan uga baahnayn inay nagu taageeraan aad bay u ballan qaadeen ballanqaadkaasi waa qaadanay annagana waxaan ku dadaalnaa insha Allah muddo dhow inaan bilaano fulinta hawshaas aad iyo aad baa u mahadsantiin qorshahaas waxa ka soo baxa outcome-kaad arki doontaan uma baahna fasiraad kale waa mahadsantiin hogaanka dawladda Soomaaliya oo muhiimada koowaad ata sugowka amniga muwaadiniinta Soomaaliyeed maalsho dhulsho Soomaaliya guud ahaanba iyo wada qorshuusa ka fadahay in la haka afjar ficilada guracan ee kooxda nabadiidka iyo ka diidanyiin horumarka dalka waan iyo ka banaysadahayaan dhiiga dadka Soomaaliyeed Maxamed Nuur Maxamed Abdullaahi JTV Baydhabo